sawirkaad u jeedaan waa Axmed Shaakir Fiiqane qaraxiisi miidaaminta ahaa ee la doonayay in lagu dilo madaxweyne Qoorqoor Cabdi Qaybdiid iyo xildhibaan Dhaban Cad ayuu isku dhigay oo uu badbaadiyay nafaf badan. gaari Cabdi Bilaah oo watay ayuu ku dhuftay gaarigii qaraxa saarnaa. waxay ahayd wixii ugu dambeeyay oo rafasho ah oo xagasho ah oo ay isku dayeen bay ahayd qawaarij waxa ay sameeyeen. waxaan rabaa inaan idiin sheego 3 toddobaad ka badan furmaha hore dagaalkan ku sugnayn haddana waa ku sugnaanayna insha Allah. Allah u naxariiso Axmed Shaakir Fiiqane naftiisa ayuu u horay badbaadinta mas'uuliyiin badan. waa dhacdo murugo iyo geesnimo huwan. waa mare in la waayo geesigan iyo marka kale oo ah in la badbaadiyo nafta mas'uuliyiintan. muuqaalkeenna ayaan ku soo gudbin doonaa. balse marka hore intaan gudagal waxa ka codsanayna in la sarto muuqaalkan si saaxiib badan u gaaro. sidoo kale nagu soo biro follow gare page-kan sina share gare muuqaalka oo la wadaag saaxiibadaada kale. maanta dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday furinta hore ee dagaalka ee gobolka Galgaduud. kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay wadeen qorshe ku aadan in lagu dilo mas'uuliyiin ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. gaari laga soo buuxiyay walxa qarxa oo ay ku diyaariyeen goobaha ilaa hadda ay ku harsan yihiin ay la soo aadeen jihada uu ku sugan yahay ee furinta dagaalka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo mas'uuliyiin kale oo xildhibaano ay ku jiraan. Axmed Qoorqoor waxaa la jiray Cabdi Qaybdiid iyo sidoo kale xildhibaan Dhaban Cad. furinta hore ee dagaalka ee gobolka Galgaduud gaar ahaan halka la yiraahdo Laas Gacmi ayay ku sugnaayeen. ninkii naftihaligaha ah ee ka tirsanaa Shabaab gaariga qaraxa ayuu dhankooda la soo aaday. balse arrinta dhacday waxay ahayd mid geesnimo ximbaarsan. kadib markii wiilkan aad u jeedaan ee Axmed Shaakir Fiiqane uu Cabdi Bilaah la soo cararay welibana uu ku dhuftay amba ku horjaray gaarigii qaraxa saarnaa si uusan u gaarin amba u waxyeelayn mas'uuliyiintan uu ku jiro Axmed Qoorqoor. halkaas ayayna ku baaba'een labada gaari, kan qaraxa siday iyo kan uu ku jaray Axmed Shaakir Fiiqane. ninkii doonayay inuu isqarxiyo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab iyo geesi Axmed Shaakir Fiiqane ayaa halkaasi ku dhintay uun kaliya. waxaana halkaasi ku badbaaday Axmed Qoorqoor Cabdi Qaybdiid iyo sidoo kale xildhibaan Dhaban Cad. Allah u naxariistay Axmed Shaakir Fiiqane geesinimada uu sameeyay waxay noqotay mid taariikhda u gali doonta. waxa uu badbaadiyay nafaf badan oo mas'uuliyiin ay ku jiraan. si weyn ayaa loo hadalhayaa waxa uu sameeyay Allah u naxariistay geesi Axmed Shaakir Fiiqane. Axmed Shaakir Fiiqane waxa uu sameeyay dhacdo cajiib ah. Axmed Shaakir Fiiqane waxa uu sameeyay waxa ay noqdeen wax si weyn loo hadalhayo. Allah u naxariisto waa geesi Axmed Shaakir Fiiqane. madaxweyne Qoorqoor oo hadlay waxa uu sheegay inaysan taasi ku joogsan doonin dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, inay sii wadi doonaan ayuu ballan qaaday madaxweyne Qoorqoor dagaalka. Axmed Shaakir Fiiqane waa mid ka mid ah ilaalada daacadda uu ahaa madaxweyne Qoorqoor. maalmihii ugu dambeeyay waxaa la sheegay inay jireen qorshe ku saabsan sidii loo dili lahaa madaxweyne Qoorqoor. tani waa mid ka mid ah waxyaabaha muujinaya shakigii jiray. sababtoo ah maanta waxaa la soo weeraray nafta madaxweyne Qoorqoor iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo la jiray. alla waa uu badbaadiyey, balse waxaa gacanta Al-Shabaab ku baxay geesi Axmed Shaakir Fiiqane. Allah u naxariisto.